waxaan aad ugu faraxsanahay inuu kulankaani ka dhaco magaalada Kismaayo xarunta kumeel gaarka ah ee Jubbaland oo maanta uu yahay kulan kamida kulamadii caadiga ahaa ee ay yeelan jireen dowlad goboleedyadu. dhismaha dowlad goboleedyadu waa madal kulmisa dowlad goboleedyada kana shaqeysa xoojinta howlaha federaalka dalka. tixraaca qodobka 51 ee dastuurka federaalka xiriirka iskaashiga heer dowlad goboleed Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo qodobka 52 iskaashiga xukuumadaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya waa madal lagu xoojinayo iskaashiga u dhaxeeya dowladaha ka ah xubnaha dowladda federaalka dhexdooda iyo xukuumadda federaalka waa madal lagu gorfeeyo laguna xalliyo wixii khilaafaad ah ee ka dhaxdhaca dowlad goboleedyada dhexdooda dowladda federaalka ah iyo hay-adaha bahwadaagta ah ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed waa madal lagu horumarinayo iskaashiga dhaqan dhaqaale ee u dhaxeeya dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waa madal lagu adkeynayo midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed iyadoon laga tegaynin kala duwanaanshaha baahiyaha dhaqanka dhaqaale iyo deegaanada dalka. arrimaha aan doonayno ama saldhigga oo had iyo jeer in laga hadlo oo madashaani ay saldhigga u tahay waxaa ka mid ah arrimaha amniga oo kale oo ah arrimo aada moodo Soomaaliya nolosheedu inay ku salaysan tahay amni in la helo waayo waddan burburay qorigu faraha ka baxay cadowgiisu badnaaday wuxuu yeelan karayaa dhibaato badan oo fara badan baa soo gaari karaysa noloshuna ma suurtoobi karayso haddaan la helin xasiloonida amniga. amni daradana waxaa koow ka ah xubnaha nabadiidka ah ee waddanka maanta gacanta badan ku haya dhibaatada u geysanaya oo dhowr goorna laga hadlo inay iyaga koow ka yihiin in amniga sugitaankiisu ay ka mid tahay in iyaga wax laga qabto. taa markii aan idhaahno waxaan u malaynayaa marar badan baa waxaa laga hadlay shirarkii hore ama ha noqoto kii heer dowladda federaalka ee national security ama ha noqoto kii heer dowlad goboleed in arrimaha amniga laga dhigto ajandaha ugu horeeya muhiimadana la siiyo laakiin aada moodo inuu halkiisii taagan yahay oo aynan ahayn mid rasmi ahaan u sii jirta. waxaan intaana hadalkaas badan sii geli rabay inaan salaantaydii raaciyo inaan idinku soo dhoweeyo shirkan oad ku soo dhowaataan oo aan rajeynaya insha allahu inuu warkaas hore inoogu baxay. arrimaha amnigu Soomaaliya waxay u yihiin lafdhabar waa mid furan qof kastoo Soomaaliya ama heer dowlad goboleed ha noqdo ama heer dowladda federaalka ha noqdo. wax badan oo amniga laga wada hadlayna waxaan is leeyahay mar hadduu wakiilkii qaramada midoobeyne uu joogo inay yar tahay waxa ka fulay oo fulitaanka arrimahaasi ay aada u yar yihiin una baahan yihiin in dib loogu noqdo waddankana xaaladuu ku jira dib loo xisaabtamo arrimaha amnigana ay u baahan yihiin in dib loo gorfeeyo. waxaa ka mid a qodobka labaad arrinta dastuurka waddankani khilaaf badan iyo culays badan iyo dhibaato badan oo jirta waxaad moodaa in dhowridda iyo dastuurka iyo dhammaystirku ay tahay saldhigga iyo gunta dowladnimada Soomaaliyeed. waxa ama wax la isku raaci karo ama lagu hagaajin karo ama wax lagu socodsiin karaa waa dastuurka oo la ilaaliyo dhowristiisa iyo dhammaystirkiisa. haddii dastuurkaas aynu ku heshiinay isaga loo hoggaansami waayo oo la dhowri waayo oo la dhammaystiri waayo oo isaga lagu dhaqmi waayona waxaad garan karaysaan meesha lagu soconayaa inay noqonaysaa nintooxsi dhibaataduna ay noqonaysa dhibaato qof walba meeshiisa ku taabanaysa dhibaatada iyo burburka iyo dhibka yimaada iyo khilaafka siyaasadeedna kulligii asal uu u noqonayo. taasaa waxaa asala markaa arrinta dastuurka dhowritaankiisu inay tahay shay muqadasa. waxaan aada ula soconnaa maanta dastuurkii Soomaaliya marka hore kumeel gaarka waxaa laleeyahay waa la xaday waa la waayay. waxaan haddana maqlaynaa dastuurkii
waa la process buu ku jiraayo intaasoo jabtar baa hadda loo gudbinaya baarlamaanka waxaan maqlaynaa dastuurkii heer gabagabaa inuu ku jiro sidaa la yeelayo shuruudihii ka horreeyey iyo wixii lagu heshiiyey ee dastuurkaas wax looga qaban lahaa ilaa waa wax dhaqan ay bulshadu leedahay inaan midna lagu dhaqmaynin ee ku takrifal arrimaha dastuurka oo si khaldan loogu dhaqmayo oo aan la ogeyn meesha uu ku dhammaan doono hadhowna cilib xumadiisa ay cid badani dib ugu soo noqon doonto in loo baahan yahay in la ilaaliyo oo arrimaha dastuurka dib loogu noqdo lana ilaaliyo wada shaqaynta golayaasha dowladda iyo xubnaha ka ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo kulli ummadda Soomaaliyeed inay cid waliba yeelato xuquuqda ay ku leedahay dastuurka iyo ilaalintiisa oo dastuurka uusan ahayn mid meel gooniya ama cid gooniya ay si rabto u maamuli karayso waxaan isleeyahay arrintaas shirka gadaashiisa inay ka iman doonaan wax badan oo guddiyadu ay ka hadli doonaan haddii ilaahay yidhaahdo oo la isweydiin doono dastuurka xaggee buu marayaa xaggee loo jeedaa muxuu ku dhammaaday muxuu ku soconayaa bays kale isagaa u ah tallaabooyin badan oo la qaadayo arrimaha dastuurka in la ilaaliyo dib loo saxay iyadaa asal u ah waxaa ku jira nidaamkii garsoorka isagana oo aan is leeyahay garsoorkii waddanku isaga laftirkiisu waxaad moodaa in siyaalo badan ay hash ugu jirto oo maanta markii shir jawhar ka dhacay wax la isku ogaado shirar kale ay iska socdaan inta badan ay jiraan eedo badan oo dowladda federaalka ah qaabka ay garsoorka iyo u maareynaysa iyo hay-adihii garsoorka ama heer federaal ha noqdeen ama heer dowlad goboleed ha noqdeen in qaab dhaqanka maanta jira uu yahay mid keeni karaya dhibaato iyo culays iyo mushkilado badan oo aan isleeyahay wuxuu abuuri karayaa qaab badan oo dhibaato ah waxaan rabaa intaana qodobada qaarkood qaabkaa ugu sii waxaynin maanta waddanka Soomaaliya markaan dib ugu noqono dhowr iyo 20 sano wuxuu marayaa marxalad fiican oo steps la soo qaaday oo la soo gaarsiiyay xarig isku dhiib waxa la yiraahdo ciyaarta xarig isku dhiibkii maanta uu stage soo marayo waxa la farana ay tahay dowladda federaalka oo iyadu mas'uuliyadda dowladnimo ee Soomaaliya maanta ay saaran tahay iyo madaxda halkan fadhida dowlad goboleedyada oo maanta iyagu matalaya shacabka intiisa badan ay ku dhacayso haddayna jirin in laga wada tashado oo laga shaqeeyo waddanka xaaladda uu marayo iyo wuxuu soo maray iyo siduu yahay waa arrin keeni karaysa waddanku inuu xaalad burbur siyaasadeed dhaqaale iyo dhaqan intaba dib uu u galo sidaa daraaddeed haddayna jirin wada shaqaynta iyo iska warqabka iyo xidhiirka ka dhexeeya mujtamaca Soomaaliyeed iyo dowladdu federaalkii iyo hogaamintoodu ayna qaadanin hogaamin ama qiyaado raashida ah oo tii looga baahnaa waxaa lumaya wax badan oo aan isleeyahay waddanka waxbaa looga qaban karaa ama xaaladiisa waxbaa lagu samayn karaya waxaan rabaa inaan wax yar ku sii celceliyo weliba aan aada uga hadlo arrinta amniga oo kale shirar badan baan ballamo kaga galay maanta waxaad aragtaa waddanku 2016 meeshuu marayay meel kasii xun buu marayaa xagga amniga especially marka magaalada Muqdisho oo kale dib loo fiiriyo waana mas'uuliyadda koowaad ee xukuumadda federaalka ay qaaday shirarkii aanu galay Muqdisho iyo London iyo Baydhabo iyo kulligood oo arrimaha amniga laga hadlayna waxaad moodaa wax laga fuliyay haba yaraatee inayna jirin nooca loo hogaaminayo iyo qaabka amniga looga shaqeynayo waddanku jidad la xidhay iyo burbur gaadhay iyo deegaano shabaabku gacanta ay la sii galaan inay kulligood dib ugu soo noqotay oo aan isleeyahay nooca ay ku socotahay way ka sii daraysaa sidii hore u ahayd shabaabna maanta waxay heli karaan fursad ay awood ku yeeshaan oo maanta waddanka ay meelo kale ku gaadhaan ay u baahan tahay in arrintaasi dib bal xukuumadda iyo madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyadu ayna macno sameynayaan shir intii la qabto oo la kala calaacalo oo shir kale la qabto oo ballanqaad la isu sameeyo oo la fulin waayo lama fulinin iyo waa la fuliyey iyo ballanqaad intaasa inayna noqonin arrinta had iyo jeer aan ka hadalayo ay noqoto bal wax midho dhali karaya oo international communityguna ay qaadaan mas-uuliyadda ka saaran ummadda Soomaaliyeed iyo dowladnimada oo maanta waddanka Soomaaliya u baahan yahay in dib loo xisaabtamo la isweydiiyo waxa jira iyo meeshay marayaan iyo saytay waxaan rabaa inaan halkan uga soo jeediyo aragtida aan ka qabo maanta Soomaaliya sida ay badbaadadeedu tahay
iyo xaaladdu meeshay ku socoto iyo dareenka iiga muuqda maanta sida Soomaaliya ay burburka ugu sii dhacayso iyo qaabka ugu sii dhacayso madaxda dowladda federaalka ah oo had iyo jeer si furan uga wada hadlayeen waxaad moodaa in ay ku dhaqmayaan ama ay wax ku maamulayaan rabitaankooda iyo sida iyaga markaa ay rabaan iyo sida u muuqata ee ayna saaraynin cabirka iyo aragtida wadanku waa wadan noocee wadanka la maamulayahay dhaqankiisu muxuu yahay xagee buu soo maray boogaha Soomaalida dhexdooda yaalay waa kuwa noocee maxaa lagu ilaalin karaa inay intaas ka maqan tahay baad moodaa oo aysan ahayn mid ay u muuqatay iyaga rabitaankooda inay nooca maanta ay ku noqonayso Soomaaliya way ka duwan tahay wax ay qof iyo laba qof iyo saddex qof xukumi karaan maanta looma qaadan karo dowladaha dimuqraadiga iyo dowladaha waaweyn ee caalamka iyo qaabkay ku dhisan yihiin dhul wada boog ah oo wada cadow oo wada danqanaya laguma maamuli karayo waxaan arki jiray iyo rabitaankaaga waxay u baahan tahay in lagu maamulo kugu san iyo walaalow maxaa jira iyo see wuxuu jiraan iyo waxaan maxaa wax ka qabanaa taasaa Soomaaliya lagu maamuli karaa maanta sidaan rabaa iyo sidaan maamuli jiray laguma maamuli karayo sidaa daraadeed waxaan aad u soo boorinayaa golaha oo saaxiibaday madaxdana ka codsanaya in waxyaalaha la falanqeynaya lagu daro xaaladda dhabtay wadanku meesha uu ku jiro iyo sida ay tahay waxaad moodaa wadanku hay'adihii dawladda inuu burbur badan ku yimid xisaabtan la'aan inay jirto baarlamaankii baan arkaynaa meesha uu marayo oo hoggaankiisii iyo nooca loo bedelay iyo sida lagu bedelay si ay noqonayso la doonayo inuu u noqdo cidda la xisaabtamayso golaha fulinta inay baarlamaankii iyo rabaan inay la xisaabtamaan oo shaqadii baarlamaanku ay meesha ka baxday xeer ilaalintii iyo garsoorkii baad arkaysaan iyo cadaaladii meesha ay marayso iyo qaabka dhaqanka uu yahay iyo cidda la keenayo sida loo keenayo amnigii iyo ciidamadii baa noocaad aragteen u dhacaya wadan kulligii markaa dream riyo laguma maamuli karayo wadanku maanta riyo ma geli karayo hadhowna qof intuu iskaga dhoofo ka tagaa macno uma samaynayo waa hawl beri dadka dib ugu soo noqonaysa intii shalay joogtayna way joogaysaa dagaal sukeeye iyo burbur rabina ma xamili karayo sidaa daraadeed in la xisaabtamo ceeb ma aha in la yidhaha Axmed Madoobe waxaad ku hadlayso sidan iyo sax maaha ha la xisaabtamo ha la isweydiiyo Jubbaland maxaa ka jira maxaa ka qabsoomay maxaa kan siyaasadda guud ee dowladana in saa loo xisaabtamo waa wax aad iyo aad u sax ah in dadku si dhaw ay isu weydiiyaan waxaan isweydiinaynaa مثلا garsoorka iyo marka laga hadlayo hadda Soomaaliya inay qofkii qof dila la dilo oo qisaas ay dhacday waa shay diina saaxiibada beesha caalamka niman kamid ah yimid waxay dhahay waxaan doonaynaa falalka dilka in la joojiyo waxaan ku yidhi annaga ilaahay wuxuu leeyahay walakum fil qisaas xayaatun ya ulil albaab magaaladan Kismaayo saaka joogno markay 8 nin oo isku jufo ah ay laba nin intay soo qaaday si kibir fagaaro ugu dishay intii maxkamadda ciidanka loo saaray la toogtay maanta wuxuu gaarayaa qofku inuu qofka kale waxa uu ka tirsanayo qoriga intuu dhiga la feertamo sababtoo ilaahay markuu leeyahay qisaasta nolol baa idinku jirta waxa weeyaan dee qofna kama tallaabsado meydkiisa qofku uu ka istaagayaa laakiin markaan anigu idhaahdo sharcigan dilka ama fulin karayo saaxiibada beesha caalamku warkay ii keenayaan aan idhaahdo ama baasaboor dowlad heblaad haysataayo meesha aad baasaboorkeeda haysata falka dilka lagama ogola oo aan idhaahdo waayadi waxma tooganayo maxaa diidaya markaa kii shabaabka ahaa ee naasa hablood wax ku qarxiyey iyo kii wax dilay iyo kii wax sameeyey inay ku jiraan idanka shabaabkii maanta in Jubbaland lagu qabto qisaas dil lagu xukumo mar uu rabo laakiin xamar in lagu hayo uu rabo sababtoo uu noolaanayaa berina si kale ku soo bixi karaya dilkuna wuu iska fududaanaya wadankan wuxuu u baahan yahay in lagu dhaqo waxa isagu uu ku kala badbaadi karayo laakiin xeer waarida oo meel laga keenay wadankan laguma maamuli karayo beel caalam iyo saaxiibkay Keetina Soomaaliya waxay maanta ku noolaan kartaa ma oga dhabteedana kama sheegi karayo hal laga fakara markaa mas'uuliyadda Soomaalidu ha qaadato dalkan iyo dadkan badbaadadiisu waxay tahay qaabkay tahay dib ha loogu noqdo ha la fiiriyo garsoorka iyo hay'adihii baarlamaanka iyo kulligood in la yiraahdo dawladda federaalka kana sidanaytii kana sidanaytii waxba iyaduna wax meesha ku jira asal ahaan ma aha haddaan maanta isu mujaamalayno oo been isugu sheegno oo wax fiican isugu sheegno berina aan la kala noqono wadankuna uu burburo
أنتي جوي تتنا ويجوي قحية بربر رويمن شباب لو جوي وده كان إلهي بنا نقول حساب تبيه عن سيدنا وانا أوجه هذا الله مدحنا حكومة ده فضل على الكعة هداي لبسنا يان قلهان ودستوري قضبضة كونتر يلا وانت هساودا عيب معه دبعته معه هداي حساب لبسنا يان إلا لا حساب تبه مسؤولية ده عليس كودن أنا جاي نقول عيسى ما أنت دقاء عالم كبحيا لا بحيا دقالها شرطة نيو يوروب يو أن يعيد ولا هو بحساب دولة ذا بحيا متكاش بورسوي كقاعدة waxay dawladdu ka hadlaysaa markuu prime minister ku hadlayo wuxuu leeyahay mushaharkii shaqaalaha dawladda iyo ciidamadii iyo xildhibaanadii iyo golihii wasiirada wax wala mushahara waanu bixinay kuwa isteediyada jooga iyo ma ajnabi ma jarmal baa xagee ka yimaadeen dawladda Soomaaliyeed ee dadkan mas'uulka ka ama ku jiraan miya misaadii xaafi Cabdiweli Gaasiyo waari iyo ay mas'uul ka yihiin waa dad kale dawladdu ma waxay xukuntaa marka xafiisyada dawladda xamar yaala iyo xildhibaanada xamar jooga iyo golaha wasiirada maanta baarlamaanka Jubbaland 5 bilood la soo dhaafay mushahar muuna arag golaha wasiirada warkooda iska daa waxaan qabaa kuwa kalena marka laga reebo Puntland oo xogaan laga dhaqaale dhaanta inay sidaas oo kale wada yihiin ama ka sii daran yihiin waayo marka cidda laga qaadaya waayo cidda wax la weydiinaya waayo dawladnimada cidda lagu matalaya waayo waxaan isleeyahay waa wax aad iyo aad in laga xisaabtamo iyo in laga wada hadlo iyo inta u baahan waxaan rabaa inaan erayga ku soo koobo anaan hadda qodobo badan sii geli karin madashani markii horena waxay u samaysantay inay danaha dawlad goboleedyada iyo midda federaalka ka hadasho maantana midii baan ka wada hadlaynaa maanta waxaa tareed lagu sameeyaa la cabsi gelinaya isteediyadii doorashooyinkii waddanka waxaa laga hadlayaa hal constituency baa lagu dooran iyo sidana la yeelayaa iyo seen ku soo noqonaa baa lagu salaynayaa ee war waddankan iyo seewiya iyo xagee maraya lagama hadlayo dhaqaalihii waa midka aan ka hadlay qaabka aan yeelin amnigii may wixii aan ku heshiinay 170 intaas oo container raas tala waxa la 6 days after baan idin soo dirayna ilaa hadda waxa la leeyahay UN bay ku maqan tahay wayna dhamaatay rasaastan anigu waa shabaabka helay faragelinta isteediyada iyo wixii intay badatay waxa laga hadlayaa aan kan xeerarihii waa bedelay gudoomiye maxkamadda sare baarlamaankii waa bedelay isteediyada waa wada bedelayna ma dawladdan iyo mujtamaca wada nacamlaha xagee laga helaya ma gacan ku samaysba haddii la yiraahdo mujtamacan waa waxaan ka helaynaa waxaan soo samaysanaynaa dad sacbiyo oo ilaahay nabiga idin kala fadhiyaan ark sax ma meeshan kuma jiro waxay la tahay hal xisaabtamo dib aan isugu noqono walaalaheen mas'uuliyiinta dawladda federaalka waa mas'uuliyiinteedii waa qirsanahay caasi kuma nihin ma diideyno laakiin nin bari iga tagaya xaaladdan ku jira aan ogeyn waddanku wuxuu soo maray aan ogeyn ku riyoonaya meel kale iyo xaaladay tahay maanta xaaladdan ku jira ma naga bixin karayaan aqoonyahanka iyo arrimaha ururada bulshada iyo baarlamaanteeriyalka iyo kulligood waraan xisaabtano waddankan aan dib isu weydiino haddaan khaldanahay annaga halana qabto haddaanu wax saxsanahayna waddankan taladiisa in dib loogu noqdaan qabaa bulshada Soomaaliyeedna saasaan u sheegaya waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay qaybaha dambe shirka kaga hadli doona ajendayaashaas sida loo sheegay haddaan hadallada qaarkood si kuleyl oo laga raali ahaado